Waxdhal waxna dhigo waa dhigane si baaxad leh uga hadlaya caqabadaha dumarka xaaska ah ee ka haysta waxbarashada si ay u horumariyaan noloshooda iyo midda carruurtooda. Dhiganahan waxaa qortay Binti Ismaaciil Abshir, waa hooyo muddo dheer caqabado kala duwan ka soo martay heerarka kala duwan ee waxbarashada buuggeeda. Waxa ay diiradda ku saaraysaa xal u helidda dhibaatooyinka waxbarashada ka haysta dumar badan. Haddaba, maxay ku dooratay qorista buuggan? buuggan horta haddii la dhaho maxaad ku dooratay waxaan dhihi karaa caqabadihii soo maray ayaa ku doortay inaan qoro maadaama aan buuggayga uu kala laba ahaa in magaciisa iyo qoraalnimadiisa kala labay ahayd. marka hore waana uu maamulahayga iwaanin jiray xiisadda ii soo geli jiray markaan uga mahad celinayaa maamul sheekeeye. markii dambana macnaha caqabadihii inaan qoro mar walba inaan buug nood intaa samaysto caqabadihii marka isu soo gudboonaan xaadirkaas aan qoro intaan qorayana ay iga baaba'aan ay igu soo dhici jireen waanadiisii uu dhihi jiray macnaha mar walba waxbarashadaada ha ka harin wax walba waa iska dhamaanaya. markii dambe ay ii bateen ayaan waxaa igu dhalatay in aan qoro oo aan ka qoro si ay gabdhaha hooyooyinka Soomaaliyeed ay ugu noqoto badbaado. Iyadoo ku jirta waxbarashada dugsiga sare ayay waday safarkeeda qorista buuggeeda Waxdhal waxna dhigo. Mawjadaha caqabadaha ee hareerayay hayaankeeda waxbarashada kama aysan reebin Binti Ismaaciil waxbarashadeeda iyo qorista buugga, waxaana laga garan karaa halkudhigeeda caanka ahaa ee soo laabashadeedii dhowr mar ay ku celcelisay qoraalka buuggeeda. wallaahi haddaan dhaho caqabadaha wax ka soo maray waa koobaya ma la soo koobi karo. kuwa ugu badan haddii aan ka taataabto waxa ay ugu dhib badnaa markastoo aan isdhaho imtixaan aa gashid in ilmuhu iga xanuustaan. ilaa iskuulkii ilaa hadda aan jaamacad wado caqabadaas ay daba taaganta midda iigu weyn badanaa imtixaamada markaan galaya anoo ilmuhu istaal iiga jiraan baan galaa. wallaahi intaan iskuulka waday dugsi sare intaan wado dhan waan wada buug because waxa igu dhaliyayba waxay ahayd caqabadaha iga soo maray waxbarashada. marka intii aan dugsi sare wado dhanba waa waday ilaa haddana waa sii wadaa. Dhiganaha Waxdhal waxna dhigo waxa uu dhiirrigelin joogto u yahay gabdhaha doonaya inay ubad helaan waxna bartaan. Qoraabinti waxay aaminsan tahay in buuggeeda uu wax badan ka bedeli doono cabsida haysata gabdho badan oo waxbarto kuwaasi oo cabsi ka qaba inay waxbarashadooda soo ilaato marka ay guursadaan. gabadha iyadoo xaas ah way baran ka dhaa fursado badanna way ku baran ka dhaa haddii ayada ay ka go-an tahay ayadoo gurigeedii ilmaheedii aysan ka dayacmin wax waa baran ka dhaa hadday iska dhaadhiciso ayadu. waxaa kaloo jira iyadoo gabadha intaas awoodo oo gurigeeda iyo ilmaheeda haysata inay wax baran karto waxaa marmarka qaarkood kaga yimaada dhinaca ninka inuu caqabad ku noqdo. taasna waxaan dhihi karaa in ay sidii ay ku xallin karaanba ku xalliyaan ama markii horeba u sheegaanba. Ugu dambeyn, Qoraabinti Ismaaciil ayaa fariin gaar ah u dirtay dumarka waxbarta oo xaaska ah. fariintan u reebaya waxay tahay in ay horta naftooda ku kalsoonaadaan. karti way ku jirtaa in ay wax dhalaan waxna dhigtaan inay wax bartaan oo naftooda ay u noqdaan inay ilmahooda berri ka maalin wax ay u qabtaan taariikh uga reebaan bulshada wax la qaybsadaan hooyada aysan macnaha ka sugin aabba aysan waxba ka sugin horta bal nafsadaada maskaxdaada macnaha inkastoo cilmigaaga in walba in cilmigaagu la egyahay ayay maskaxdaada la egto. marka qofku markuu wax barto waxyaabo badan buu kala fahmayaa. marka hooyooyinka waxaan dhihi lahaa gabdhaha in ay wax bartaan haddii ay reer leedahay haddii aysan lahayn tii hadda waxbarashada wadana waxaan oran lahaa waxbarashada ma dhamaanaysa laakiin adigu waa dhamaanaysaa. isku day inaad reer samaysatid waxbarashadaadana sii wadatid. Hooyo Binti Ismaaciil waa hooyo leh 5 carruur ah. waxay caqabado badan ka soo martay waxbarashadeeda iskuulka iyo jaamacadda. waxa ay qortay buugga Waxdhal waxna dhigo oo xurmo badan ay ka buuxdo. waxaana wax badan ka faa'iidi doono buuggaasi uu naxal u noqon doona gabdhaha xaaska ah ee jecel waxbarashada. Masteexo Cumraadan, Billa TV, magaalada Muqdisho.